sidaasoo kala gooja cadala lahaa wax socon kara dawladdan oo adduunku daba taagnaa oo 30 sano wax urursanaysay in wiilal qalasii ay qaawiyaan oo maryaha ka dhigaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin dhammaan haddaan ilaahay kaabayn oo garab galayn waxaan mahadinaynaa sanadkan ama labadii sane isxigay labadii mashruuc ugu waaweynaa ee Soomaaliya hirgeliso midna wuxuu ka dhacay Garacad midna wuxuu ka dhacay Gooja Cadde waliba labadaba waxa la lahaa suurtagal maaha Garacad waa arkaynay waa la ogaa waa la kuunyay lama sahelin waxa la lahaa sidee baa reer u samayn kara hawsha sidee u qaban karaan reerkaasi ilaaha buu lahaa waana u hirgeliyay maantana waa ta aynu dugsanayno ee daawanayno ee aynu maasha Allah maalayno tol iyo tamarna waa u heleen sidaasoo kala gooja cadala lahaa wax socon kara dawladdan oo adduunku daba taagnaa oo 30 sano wax urursanaysay in wiilal qalasii ay qaawiyaan oo maryaha ka dhigaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin dhammaan haddaan ilaahay kaabayn oo garab galayn ma suura gasheen ilaah baynu ku mahadinaynaa nasiib darrana waxaa ah qoyska yar ee qoobadda ku jira ee qaranka intaa la eg hungureeyey maxay oran jireen ceesaantii mas iyo good madax shabeel liqda malageed baa galay qoyska yar ee qoobadda ku jira ee afarta koono laga xigo ee haweystay qaranka intaa la eg baaxadda la eg iyana waxa weeye waa malagood baa galay dekadan waa dekad potential wacan leh waa dekad waliba annaga si gaar ah aanu u eegayno waa dekad aanu isleenahay midhaa maanta dawladda khaatumo ee dhisaysaan dekadeedii midhaa waatan tolku inuu wax isku googoosto oo guryaha isku darsado oo mudug iyo khaatumo la israaciyo oo dekadi tan u noqoto dawladda aad baan u soo dhaweynaynaa hase yeeshee waa tala rag dhex taalla waa tolweyne dhex taalla waa tala la isaga imaan doono insha Allahu ta'ala hase yeeshee markaanu eegnay dadka iyo dhaqankooda iyo ficiladooda iyo qaab dhaqan isu ekaantooda iyo duruufaha ku hareeraysan isu mid ahaanshahooda midhaacid isaga dhawi ma ay jirto waa dareemaynaa